dhacday ilaa iyo Uganda la aaday warshadaha Uganda la aaday maxay tir xoolaha dhacday ya gabadhaada aad maxamed farmaajo baafal aad team horiska aad ugu sameysay xoolaha aad boobtay waa laga soo celinayaa insha Allah bismillah kariim waxaan leeyahay wadaadka reer Jabuutiyaanka ee Ismaaciil Cumar Geelle habar wadaagga yihiin waxaan ku leeyahay sheekhow Soomaali way ku jecel yihiin Soomaali waa lagu og yahay inaad nin wanaagsan tahay diinta ku xiran tahay waxaan maqlahay video adoo dhahay maxamed farmaajo xaaraan ma cuno maxamed farmaajo xoolaha xaaraana ma cuno maxamed farmaajo tuug maahan ilaahaaga ka baq oo rasuulkiisa ka baq oo ilaahay baad u tukataa shacbiyada Soomaaliyeed beentaad u sheegaysid iska daa anaa kaa og anuu ila dhashay qabrigaaga ha gadani Sheekh Cabdiraxmaanow qabrigaaga ha gadani wadaad baa tahay wadaadada waa ku jecel yihiin diinta taqaana qof aad aqoonin qof aad ogeyn qof aad dur taagnayn been ha ugu marxaati furin maxamed farmaajo iyo naagtiisa ilmahooda waxay uga soo kaceen dalka Soomaaliya inay ka lacagaystaan dalka Soomaaliya inay xoolo ka sameystaan dalka Soomaaliya maal qabeen inay ka noqdaan waa soo shaqo tageen ilmahooda bay u soo dayaceen ma garateen waxa weeye aniga waxaan ogeyn kuma hadlo guriyihiisa Nairobi waa keenaya nimanku xoolaha u dhibtay maxamed farmaajo waa keenaya hantida Uganda la geystay iyo warshada sokorta ay geysatay xagee ka keentay 250 milyanka ay ku dirstay Saynab ee maxamed naagtiisa xagee ka keentay lacagtay Djibouti geysatay 50 milyan xagee ka keentay guriyaha ay ka dhisatay Uganda xagee ka keentay ilan beejag yar buu qaadanayay Mareykan markuu joogay secretary buu ahaa karaani buu ahaa ma garatay waxa weeye ilaahay ka baq qabrigaaga ha iibsan qabrigaaga dunuub ha u gelin qabrigaaga cadaab ha u gelin da ku sheegaya waa wadaadka maalin kasta la soo dhigo ee beenta ka sheegaya maxamed farmaajo waxba ma dhicin ilaahay ka baq maalinta yoomil qiyaamaha lagu haystaa shacbiyada Soomaaliyeed oo been u sheegtay ilaahay ka baq shacbiyada Soomaaliyeed sheekh baad tahay diin baad leedahay diin baad ku dhigantay wadaad baad tahay waa wadaadkii laga baqi lahaa oo la aamini lahaa wuxuu sheego heerkaasaan taaganahay sheekhyadii xitaa inay been ninkii tuuga ahaa ay maxay ku support gareeyaan heerkaasaan diintii muslimka ka taaganahay diinta muslimka halkaasaan ka taaganahay marka idin leeyahay diinta muslimka meel baad uga dhacdeen marka idin leeyahay diinta muslimka waa wasakhayseen diinta muslimka waxa weeye waa naxariis waa nasteexo waa inaad daacad noqotaa waa inaad runta ka hadashaa waa inaad qofna dhibaataynin waa in dadka bini aadamka ka nabad galaan waa in dadka masaakiinta u naxariis